munaasabadan ayaa ahayd mid si heersara loo soo agaasimay looguna dabaaldegayay sanad guurada 12aad ee aasaaska boqortooyada Biimaal. magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay iyadoona ay ka soo qayb galeen dhalinyaro, haween, nabadoono, siyaasiyiin iyo marti kale oo la casuumay. dhalinyaradii soo agaasintay iyo dadyoogii ka soo qayb galay waxay u dabaaldegeen sanad guuradooda, halkaas ayayna ku soo bandhigeen calankii beeshu lahayd. khudbadihi ayaa la gudagalay. ugu horreynna waxaa hadlay qaar ka mid ah nabadoonada iyo suldaanada goobta joogay kana sheekeeyay taariikhdu ay leedahay boqortooyada Biimaal. haddii geesi jiro Soomaaliya Biimaal waay. dadka waxay ku maahmaahaan qofka bini aadanka ah wuxuu ka doortay in la cadaadiyo geeri. dadka la dhahayo annaga waay, dad kale maaha. waxaad moodaa meelo badan in shirkan lagu dhigay oo boqortooyada beesha Biimaal ah. tanna waxaa moodaa taas inay daba kici doonto maadaama gobolka Banaadir meesha ugu quruxda badan ee beerta nabadda maanta caawa haddaan isugu nimid aada u mahadsantihiin. annagu dad la yaqaanaan nahay, qofna kama baryayno. boqortooyo la yaqaan oo caalam ah oo dowladaha Yurub ay yaqaanaan nahay. taariikhdeena meeshaas ay taallaa. waa ilaahay mahadii qabiil Soomaali dagaal beeleed waa galaan qabiilada Soomaali, laakiin dagaal oo wadan lagu difaacay qabiil gala Biimaal ka jira oo dowlad weyn oo naata la dagaalamay. dhalinyaradii kala duwaneed ee ka soo qayb galay madashanna dhankooda goobta ayay ka hadleen. dadba waxay ku hoolan yihiin inay kala jajabiyaan oo kala qaadaan boqortooyadii Biimaal. dhalinyaradooda iyo odayaalkooda intaba dad baa ka shaqeynaya inay kala qaadaan. dadkaas waxaan ugu digaynaa oo beesha kala qaadaya annaga waxaan nagu filan calanka. waxaan rabaa dadkii soo aasaasay calankanna waxay mudan yihiin xasuus gaara. waan xasuusan doonaa. waxaan leenahay maanta farxaddeena lama soo koobi karo. aan isku dayno hadda ma garanaysaa waxa hadda aan wajiyadooda arkaya boqolkiiba 99 waa dhalinyaro. waana dadka loo baahan yahay inay berri ummadan iyo dhammaan ma garanaysaa ay xaaladeeda ay bedelaan. marka anagu Biimaal waa ka dhalanay dhammaan saldanada Facaweyn. waxaan rajayn doonaa xafladan caawa halkan ka dhacayso in sanadka dambe lagu dhigi doono magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Hoose Markacadey. waxaan leeyahay boqortooyada Facaweyn nimaa ka dhalan baaciil qaba, nimaa ka dhalan baaciil qaba. Biimaal Maxamed waa Biimaal waxa isu kaashaday Eritrean, meesha la Talyaani, Ingiriis, nimanka la yiraahdo Sacuudiyaan, Yamaniyiin, intaas wax ka qaadi weyday. sidoo kale haweenka ayaa halkaasi ka hadlay isuguna hambaliyeeyay sanad guuradooda 12aad oo ah aasaaska boqortooyada Biimaal. insha Allah sanadkan sanadkiisana waxaan ka sameeynaa xafladan mid ka sii baran magaaladeena Markacadey. معانا بقرتويد بيمال هي بقرتويد بيمال قوليستا مروال بقوليستا جماعة بيمال جماعة مورينا يهين جبانية شورشان شرمال كلا شانسان جماعة دوني دا حرير شوكتلا يهين مرايكن كتشوغن بيمالين شبي كران عندي وجوابتا شقادا يكريدا هيان وما حسنتي ولا لهي. فاطمة عبد القادر، TV-ga Dalsan, Muqdisho. si aad ugu adeegato